magaalada Rugay dhowr iyo 30 kiiloomitir ayaa dayactir iyo ballaarin lagu sameeyey muddo sanad ku dhow oo dhismaha jidka socday gudoomiyaha iyo wafdiga hoggaamiye ayaa ujeedkoodu daaranaa diyaargarowga wejiga labaad ee dhismaha waddadaasi kaasi oo la qorsheynayo in laga dhigo wadda laamiya ugu horeyna waxaa ka wadaayay waxqabadka jidkaasi laga qabtay dhismaha waddada tabca ee gobolka Sanaaga waxaana ruglaydaasi oo qiimaha la soo siiyey oo kor u dhaafayo $35,000 iska kaashaday mas'uuliyiinta maamulka degmada Maydh iyo qurba-joogga ururka Niil ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye Axmed Cumar Jaamac Jabaabul inta adeegsada waddadaasi oo xilligaasi qaarkood ay ku safrayeen gaadiid yaryar oo kolkii hore aan maridda waddadaasi hawaysan jirin ayaa waxa ay ka jawaabeen isbeddelka ka muuqda waddadaasi waddada waxaan mari jirnay markii hore iyadoo ahaatee magaalada Ceerigaabo oo halkaasi oo beriyey u dambeeyey bulshada deegaankaasi oo isugu jira qurba kiiloomitir tan iyo intii dhismaheeda laga bilaabay bilooyin ka hor tuulada Karin waxaana haatan la dhaafay ilaa iyo 4 kiiloomitir deegaanka Madarmugge oo dhinaca gobolka xiga tanina waxa ay ka dhigan tahay in si sahal ah baabuurtu isaga kala gooshaan 25 kiiloomitir ee dib u habaynta hagaajinta iyo dayactirka lagu sameeyey xildhibaan Jaamac Jibriil iyo xildhibaan Ismaaciil Jaamac oo kamid ah gudida dhismaha waddada tabca iyo waliba aqoon-yahano haween iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gudidaasi ayaa geestooda sida waddadaasi tabca ee gobolka Sanaaga intaasi kadibna waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay xildhibaan Case Warsame oo wafdidan uu hogaaminayo la taliyaha wasiirka wasaaradda macdanta uga mahad celiyay maanta oo Jimcaha waxa halkan ugu soo booqday wafdi ay ka koobeen waxay yiraahdaan labadan shay buu amalku ka kooban yahay inaad waxa doonaysid iyo inaad awoodid markaas uu amalku ku qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awoodo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeyo insha Allah baraan samayn doona war maanta aad qaban karaysaa maxaa bari amal kale u dhigo ma ay baraan samayn doona wax kasta baru u dhigaya ama ma aha barnaamijyo iyo barnaamij buu degaya markaasuu leeyahay insha Allah saasa yeelaya sanadka dambe quraankan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha Allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubta inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku kale yahay waa barnaamij afka ah amal ma gaadhayo aqaltii la'aanti kaligii matayni haddaynan istaaqulin tabaryeelanayne aqaltii la'aanti kaligii matayni haddaynan istaaqulin tabaryeelanayne kortashada cadaawo isku tiirsanada kortashada cadaawo isku tiirsanada waa waddadii oo laga shaqeeyay saaqiyadaas oo dhan waxa haystay dhir aad u fara badan bay haysatay oo dhow intaas soo gudmood baa ku jajabay marka waa taas saaqiya markii la soo buuxiyo waddada levelkeeda ay timi laakiin waxay u baahan tahay in lagu ilaaliyo waa taa markii laga shaqeeyo saaqiyadu saasay u muuqanaysaa in saaqiyadu saabiya u dhaafisaa
wata wadadii saas oo muuqata gaari ay isu qaranaysaa ma jirto markay saa u sii muuqato